الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحكوليه: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. في سورة البقرة. في سورة النساء إلهي وحليه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أيها الأحبة، xidhiidhka aadanaha ka dhaxeeya في الشريعة العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان wuxuu ku salaysan yahay asliyan العدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. xidhiidhkaasi oo dawaa'ir ama xayndaabyo kala dambeeya ah oo ugu horeeyo qofku inuu naftiisa u ixsaan falo, kadibna usrada iyo aqaaribta, kadibna mujtamaca uu ku nooliyey, kadibna insaaniyada dhammaanteed aynu odhan karno. daa'irada koowaad ee nafta iyo ixsaan falkeeda ilaahay wuxuu leeyahay: in axsantum lianfusikum wain asa'tum falaha. daa'irada labaad oo waalidka ilaahay wuxuu leeyahay: waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana. xayndaabka ama daa'irada saddexaad oo ah qaraabada in loo samafalo ama se la xidhiidhiyo waa ka mowduuceennu ku saabsiisan yahay. ilaahay markuu tilmaamay anlaa tacbuduu ila allah laa tacbuduuna ila allaha wabilwaalidayni ixsaana wadi lqurba walyataama walmasaakiin baa ilaahay ku xigsiiyey. daa'irada afraad waa bulsho weynta ama oo qur-aanku uu siiba ka sii tilmaamayo qaybteeda ducafada ah: alyataama walmasaakiina waljaari di lqurba waljaari اljunub wasaaxibi biljanbi wabni sabiil. daa'irada ugu awsacsan ee xidhiidhka ee bini aadamnimo la sameeyaa waa daa'ira alkhaamisa oo ah alcilaaqaat alinsaaniya dhammaanteed, oo ilaahay subxaanaه wa tacaala ku tilmaamayo: walaa tazaalu taطalicu calaa khaa'inatin minhum ilaa qaliila minhum facfu canhum wasfax in allaha yuxibu اlmuxsiniin. haddaba aadanaha xidhiidhka ka dhaxeeya asal waxa uu alcadl wاlixsaan dhammaantii maca almukhaalif. asalku waa alcadl wاlixsaan. waxaynu markaa innaga darsigan loo qoondeeyey inuu noqdo ka ku saabsiisan silat rixm ama qaraabada iyo dadka tolka leeyay xidhiidhkiisa. alixsaan ila alaqaarib ama samafalka loo samafalo dadka kuu dhow waxay ku salaysan tahay hadba awoodda qofku uu leeyahay iyo ka la xidhiidhinaya awooddiisa buu imaamu nawowi leeyahy raxmat ullaahi calayh. markaasu wuxuu leeyahay mar waxaa dhici karta inay adduun noqoto oo xoolo laysku caawiyo o laysku xidhiidhiyo. mar waxaa dhici karta buu leeyahy inay khidma iyo shaqaalanimo noqoto oo laysu shaqeeyo oo lays caawiyo. mar waxaa dhici karta buu leeyahy inuu xidhiidhku ahaado ziyaara iyo salaam, isbooqasho iyo isosoo salaan. marka aynu joogno waddannadan galbeedka waxaad mooddaa inay iyaga caan agtooda ka tahay wax privacy la yidhaahdo. qofka iyo dowladdaa xidhiidh leh, laakiin bulshadan ka sokaysa in badan inaanu xidhiidhkiisu badnayn. walidaalika inaanad arag ilmo iyo aabbihii ama waalidkii oo isxidhiidhinaya iyada qaraabo kale ka kaalaya. la dhaqanka lala dhaqmo bulshooyinka noocaasiina wuxuu dhaxal siinayaa dadka in dhaqamadooda wax badan oo ka mida ay bulshada ku dhex faafaan oo la qaato. walidaalika baad mooddaa in loogu talagalay muslimka muqtaribka ah ama muslimka carrigii muslimiinta ka soo durkay ee dhul shisheeye degay ee dhaqan iyo hidde kale la noolaaday looga cabsi qabo inuu ku milmo ama la wadaago dhaqamadooda in badan la xasuusiyo
dhaqanku islaamku lahaa iyo diintu wixii ayna faraysay waxaa ka mid ah baynu markaa leenahay diintu waxyaabaha ugu waaweyn ayna farayso waxaa ka mid ah silatu rixm qaraabada iyo rixmka ama xagga hooyaha ka soo jeedaan ama xagga aabbaha ka soo jeedaane in la xidhiidhiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriq waalmaghrib walakina albira man aamana biاllahi واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون إلهي سبحانه وتعالى وحينات الماما يا الصمه إنان وهينون عباداتك بدني قال السمايو كلية ومشرقية مغرب سلاد اللولتش يستقر إنان يهين وحا الصحة هينو يهي رمين الرب للرمية إيا مالنت القيامية إيا ملائكتي إيا كتبت إيا النبي ده وحا إلهي سبحانه وتعالى أركان الإيمان كي كحريري وآتى المال على حبه ذوي القربى إيا هانتي xoolo in la siiyo iyadoo la jecel yahay waliba xoolo saacado badan aad ku soo dhididay oo waqti badan ka galay inaad haddana bixiso oo aad siisaba ilaahay leeyahay dawi alqurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil kuwa qaraabada oo saaxiibka ah agoonta iyo masaakiinta iyo kuwa jidku ku go'ay waayay safarku ku dhex go'ay iyo saa'iliin iyo wixii la mid ah waxaan u tilmaamaynaa aayaadkan qur'aan badan baa ku soo arooray iitaa'u dil qurba yasaluunaka maada yunfiquun waxay ku weydiinayaan maxaanu bixinaa qul maa anfaqtum min khayrin falilwaalidayni walaqrabiina walyataama walmasaakiina wabni الsabiil wixii aad bixisaane khayra baa ilaahay yidhi waalidka ay ku xigto qaraabadu ay ku xigto bulshada weyne kale inteeda baahane وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إلهي سبحانه وتعالى آيات بدن قرآنه أيوح كت المامية دتك كو حق لإن وحلسيين يهين كو والد كدبنا قرابضة كدبنا ضعفضة مسلمين تا بل قرابضة إلهي وحت المامية هدي والد كردنتو الله دحل أيوه dadka dhaxalka leh siiba hadday qaangaadh yihiin goobta dhaxalka marka la joogo qaraabada kale soo xaadirtay timaada ee aan dhaxalka iyagu wax ku lahayn in wax la siiyo وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه بايلهيري وحكسيو كارزاقا وقولوا لهم قولا معروفا آياتك قرآنك يا آيات بدن وكلا قرآني وحي تلماميان qaraabada xidhiidhka ay u baahan yihiin in la xidhiidhiyo xidhiidhkaasi ha noqdo mid hantiyeed mid caawimo kala ah mid booqasho ah mid salaana intaba inay xidhiidhkaasi xaq u leeyihiin dadka qaraabada iyo sokoayaha iyo dadka ku dhow inta aanan tafaasiil badan gelin nusuus badan oo qur'aanan akhrinin waxaan tilmaamayaa waa waxyaabihii ugu horreeyey ee shareecada islaamiga ay la soo degto qaraabada xidhiidhinteedu waxay soo degtay tawxiidkay la socotay qaraabada xidhiidhinteedu waxay la socotay tawxiidka walidaalika baa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka maalan uu warinayo camar ibnu cabasa asulami saxaabigii la odhan jiray ayaa wuxuu leeyahay kuntu wa ana fi ljaahiliya adunnu ana annaasa calaa dalaala waqtigii jaahiliyada aan joogay buu yidhi haddana waxaan arkayuun dadku waxaanay samaynayaan inay baadi tahay diintanay dadku haysteen waqti ljaahiliya inaanay sax ahayn baa ii muuqatay buu yidhi oo waxay dadkani caabudayeen sanam iyo wax la mida waxaas inaanu sax ahayn waxaan markaa maqlay buu yidhi in makanin ka soo baxay oo akhbaar cusub wada markaasaan soo fuulay buu yidhi neefkaygii daabaddaydii anigoo raba dadkani waxaanay ku sugan yihiin waa dalaale bal ninkan cusubi wuxuu sheegayo inaan soo maqlo makaan imi buu yidhi waxaan u imi buu yidhi iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam
مستخفيا جراء عليه قوم سقوا أهبولي فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستخفيا جراء عليه قوم إيادو نبي دومنا أيوه وتلكين أي كل رين الله دبيه يعني والدعوة مركب بلابان طيبة ونبي عليه الصلاة والسلام لدبي أو دومنا يبولي إسلام كان اللي كل رين الله دبيه dabeetana waan u soo dhuundhuuntay buu leeyay ilaa aanu imi nabiga calayhi salaatu wasalaam camar ibnu cabasa as-sulami nin reer miyiga abaa u yimi su'aaluu nabiga weydiinaya su'aalaha wuxuu kaga bilaabay maa anta man anta ma laha kumaatay male ee wuxuu leeyay maa anta maxaatay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ana nabiyun anigu nebi baan ahay buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkan muslimka noqday ee reer baadiyey wuxuu ku yidhi markaa wama nabiyun oo nebigu waa maxay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu nebi baan ahay isna wuxuu yidhi haddaba nebigu waa maxay buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay arsalanii allah ilaahay baa isoo diray buu yidhi ilaahay baa isoo diray wuxuu yidhi markaa wabiayi shayin arsalak oo muxuu kugu soo diray ilaahay haba kuba soo diree waxaad wadeen risaaladaadu waa maxay wuxuu nabigu ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam arsalanii bisilati الraxim bisilati اlarxaami wa kasri اlawhaani waan yuwaxad allahu laa yushraku bihi shayun saddex shay baa laygu soo diray buu nebigu ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam wa fii awali الrisaala nebigu wuxuu leey waxaa laygu soo diray qaraabada xidhiidhintii iyo asnaamta burburinteed iyo in ilaahay keligii la caabudo aan loo shariig yeelin saddexdaa qodob baa laygu soo diray buu nebigu yidhi idan culammadu waxay yidhaahdaan waxyiyadii u horreeyey nebiga la soo faray waxaa ka mid ah tawxiidka in dadka loogu yeedho asnaamta in la burburiyo iyo in qaraabada la xidhiidhiyo ma awoodeen wakhtigan inuu nebigu asnaamta burburiyo laakiin inay mabda' tahay buu tilmaamayay asnaam burburiskii nebigu wuxuu bilaabmay wakhti dambe laakiin warka kan waxaa loo sheegayaa mabaadi'da islaamku uu la yimi waxa uu yahay waxaan weydiiyey buu yidhi faman macaka calaa haada warka ayaa kugu raacsan nebigu wuxuu igu yidhi buu yidhi xurun wa cabdun dad xor iyo addoommaba way la socdaan buu nebigu ku yidhi markaasuu saxaabigani wuxuu leeyahy markaa waxaa la socday abubakar iyo bilaal baa ka mid ahaa buu leeyahy markaa kuwii rumeeyey waxaan ku yidhi buu yidhi aan ku raaca haddaba aniguna waa ku rumaynayaaye waa ku rumeeye aan ku raaco nebigu wuxuu igu jawaabay buu yidhi hadda ma awoodid innaka laa tastatiicu daalika yowmaka haada maanta ma awoodid inaad raacdid buu yidhi alaa taraa xaalii wa xaala annaas miyaad i arkayn buu yidhi aniga iyo dad waxna kala haysta anigii baa dhuumasho ku jiree adigoo baadiye ka yimi xaggaad ii raaci buu ku leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam iska noqo buu nebigu ku yidhi reerahaagii ku noqo beriga aad maqashay inaan guulaystay markaa ii kaalay buu nebigu ku yidhi iminka intaad iska noqoto ilaahay rumee dabeetana iska tag reerihiinni ku noqo marka aad maqasho inaan guulaystay markaa ii kaalay buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabigani wuxuu leeyay dabeetana waan iska noqday reerkayagii baan dib ugu noqday muddaan akhbaarta dhegaysanayay bal waxa maka ka soo kordhay iyo waxa isbedelay markii dambaa waxay soo gaadhay war ah inuu nebigu uu hijrooday oo madiino tegay baa soo gaadhay buu yidhi markaasaan soo baxay buu yidhi dad reer yasriba waxaan warwaraystaba dad reer madiina baan helay buu yidhi waan weydiiyey waxay yidhahdeen ninkaasi waa yimi siduu xaalkiisu yahay baan ku idhi buu yidhi waxay yidhahdeen dadkii way raaceen markaasaan madiina soo galay buu yidhi nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi atacrifunii waa nin reer miyiya may garanaysaa buu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu u yimi nebiguna wuxuu ku yidhi qaala nacam waan ku garanayaa anta aladii laqiitanii bimaka ninkaanu beriga hore maka isku aragnay baa tahay buu nebigu ku yidhi markaasaan idhi buu yidhi haa ee ilaahay rasuulkiisiiyo wixii alla ku baray wax iga bar oo bal salaadda iga warran horta waxa la yidhi waa la tukanayaaye markaasuu nebigu u sharxay calayhi salaatu wasalaam salaad iyo tahaaro iyo islaam xadiidka waxaan u soo qaadanayaayoo keliya mas'ale ah waxyaabihii ugu horreeyey diinta ka soo dega waxaa ka mid ah xidhiidhkaasi bulshadu inay isku xidhnaato
sida daraaddeed ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamayaa ninkaa reer miyiga ee ugu yimi isagoo dhuumasho uu ku jiro xilligii hore islaamka ay tahay in waxyaabihii nebiga loo soo waxyooday ilaahay soo faray ay ka mid tahay qaraabadoo la xidhiidhiyo iyo sanamadoo la burburiyo iyo ilaahayoo keligii la caabudaan cidna loogu shariik yeelin waxaad ka garan kartaa waa acmaashii ka soo hadhay diintii nebi ibraahim bay ka mid tahay silatul arxaam waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu waxyigu ku soo degayba ee uu baqayey khadiijo waatii ku tidhi innaka latasilu larxaam waxay lahayd adigu nin fiican baa tahay oo dadka caawiya qaraabada waad xidhiidhisaabay ku tidhi oo qofka dhibban waad u gargaartaa oo yacni wuxuu nebigu samayn jiray bay tilmaamtee wanaagga ahaa marka waxyaabihii koowaad ee ay ku leedahay ilaahay ku dhibi maayo khadiiji waxay lahayd innaka latasilu raximkaad xidhiidhisaa waxaa kuugu filan wakhtigii la farad yeelay ama la waajib yeelay ama laysfaray in la xidhiidhiyo qaraabada waa wakhtiyadaa hore xataa muslimiintu wakhtiyada ay u hijroonayeen ardi alxabasha waxaa dhacday caaisha waxay leedahay anugu waxaan garaadsaday labadayda aabbo oo muslimiin uun baan garaadsaday yacni aabbiyo hooyo oo nebiguna calayhi salaatu wasalaam maalin walbana soo booqdo gelinka hore iyo gelinka dambaba markii muslimiinta la dhibay ee badhay dhulkay xabashida u hijroodeen ayuu abibakarna magaalada iskaga baxay abibakar meel la yidhaahdo barka alghimaad isagoo maraya ayuu wuxuu la kulmay qabiilka alqaara la yidhaahdo suldaankoodii ama odaygoodii buu la kulmay ibnu dakhina nin la yidhaahdo ibnu dakhina wuxuu ku yidhi ayna turiidu ya abibakar odaygaa waa yeelkaaba wuxuu yidhi war abibakarow xaggaad ku socotaa xaggeed u socotaa abibakar wuxuu yidhi tolkay baa i soo saaray waxaan rabaa an asiixa fi lard wa acbuda rabbi waxaa jiri jirtay qabla alislaam cibaada siyaaxa la yidhaahdo oo ah qofku intuu iska dhaqaaqo isagoo aan meel gaara u soconin dhulkiisa unun iska maro si uu ilaahay u caabudo abibakar markaa wuxuu leeyahay anugu meel gaaraba kuma socdee asiixu fi lard dhulkaan iska maraya waan socdaa waxaanan rabaa inaan ilaahay caabudo saa'ix inaan noqdo saa'ixu tuuriistkana aynu imika sheegna maaha waa saa'ixiinta qur-aanku uu ka warramayo iyo wixii la mida dabeetana ibnu dakhina ninkaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi abibakarow adigoo kale dhulkiisana kama baxo lamana saaro nin wanaag sameeyo oo waayeela oo odayo oo dadku ka dambeeyaad ahayd markaa adigoo kale nin iska tagana ma tihid nin la saarana ma tihid abibakar markaa muxuu ku ammaanayaa ibnu dakhina wuxuu yidhi innaka taksibu almacduum wa tasilu alraxim wa taxmilu alkal wa taqri dayf wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaq fa ana laka jaarun intii ay khadiiji nebiga ku lahayd oo kale buu ku yidhi wuxuu yidhi kaan waxaysan nin wax siiya baad ahay oo qaraabo nin xidhiidhiyaad tahay oo kii culus nin culayska ka fudaydiyaad tahay oo martida nin sooraad tahay oo dhib qofka ay haysato ku ka fayda baad tahay yacni waxa laaliya waxa wanaag dad loo qabto nin qabtaad tahay suurtagal maaha ninkaaga caynkaasi in maanta la saaro la yidhahdo iska tag ee waxaad yeeshaa anigaa magangelye ku siiyey carabtu dhaqan bay lahayd qabaa'ilka ama ragga waaweyni cidday doonaan bay magangelye siin karayeen marka intuu qabaa'ilka iyo dadka isugu yeedhaaba waxay odhan jireen dhegaysta hebel anuu maganteeye ninkii taabta dee waa noo tahay reer hebel bay isku madhanayaan markaa weeyaan markaa ciddu magangelyo siiyaan sidaa dowladuhu hadda magangelyada dadka u siiyaan bay u siin jireen wuxuu ku yidhi ibnu dakhina abibakar wanaa magangelye ku siiyey nin baxa ma tihid ina celi quraysh buu u keenay dabeetana wuxuu yidhi qurayshay abibakar nin la saara maaha waa nin keenna wax siiya qaraabada xidhiidhiya intii buu sheegay qurayshi may beeninin abibakar inuu sidaa yahay may beeninin waxay yidhahdeen ibnu dakhinow waanu aqbalay magangelyadaadaad siisay ninkan laakiin bishart baanu ku aqbalaynaa waa maxay shardigu gurigiisa ha joogo ilaahay ku caabudo bay yidhaahdeen waxa uu rumaysay gurigiisa ha ku caabudo salaadiisa gurigiisa ha ku tukado qur-aankiisa gurigiisa ha ku akhristo
yaanu meelaha noogu imanayno nagu dhibin ama carruurta iyo dumarka iyuu naga waalin bay idhaahdeen ninkani gurigiisa wuxuu doonayaa ku qabta laakiin dabadaha iyuu ula soo bixin ibnu daqina abibakar buu sidii ku yidhi abibakarow waana iyana cabashay sheeganayaan magangelyo anaa ku siiyo cidi ku taaban mayso laakiin waxa aad caabudaysa iyo waxaad samaysanaysa gurigaaga ku samayso sidii buu abibakar muddo ku joogay dabeetana abibakar waa la noqon weyday guri iska fadhiyo ilaahay caabud masaajid yar buu guriga hortiisa ka samaystay meel yar uu ku tukado meeshii uu ku tukanayay buu salaadu gala quraan buu kor u akhriyaa quraanka markuu akhrinaya abibakar waa nin bakaa buu ahaa baa la yidhaha waa nin oohin badan buu ahaan jiray ilaahay markuu is hortaagu ilmeeya quraanka akhriya dumarka iyo carruuraha iyo dadka meesha maraya ku soo urura waa la dhegaystaa way la tacajabaan nin keligii meel taagan oo ooyaya oo tukanaya bay la yaaban yihin waa adigoo un dee kuwan aan la nooshiin intaad bannaankaas shaahidda dhigato innaga malaa dee isheenna ilma kama soo dhacdee qur-aan akhrinayo ilmaynayo ay kugu soo ururaanu oo ay garan la'yiin ninkan keligii meesha taaganee ooyayiyo waxuu hayo ibnu daqina baa lagu noqdo waxaa la yidhi ninkii uu ka baxay ballankii inoo dhexeeyey haddii aad rabto inaad jaarnimadaada uu ku jiro meeshii ha ku noqdo abibakar buu ibnu daqina u yimi dabeetana wuxuu ku yidhi abibakarow arrinkan waxaan rabaa dee ballankii waad burisay ballankeenu saaya saasuu ahaa nimankanina dumarkooda iyo carruurtooda ay kaaga cabsi qabaan dee gurigaaga ilaahay ku caabud abibakar wuxuu yidhi dimadaadii baan kuu celiyey niyow anugu meeshan ku noqon maayee magangelyadii aad siisay baan kuu celiyey maanta laga bilaabo mas-uuligama tihid waxbaa cidna carabiyay kuu eed sheeganin xadiidku waa xadiid dheer laakiin anigu ilaahay jaarnimadiisaan raalli ka ahay buu yidhi sidaa inugu kala kaxeen xadiidka kan innagu maxallu shaahidka aynuga dan leennay waxa weeyaan abibakar waxaa la yidhi ma tihid nin la saaray iyo nin baxatoona waayo qarabadaad xidhiidhisaa yacnii inay ahayd wakhtigii muslimku uu cidhiidhigaba ku jiray waa wakhti aan salaadiba waajibin ama aan arkaan badan oo islaamigii soo degin ama sharaa'ic badan oo islaamiga aanay soo degin laakiin islaamnimada ay ka mid ahayd in la xidhiidhiyo qaraabada in la xidhiidhiyo walidaalik ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa markaynu eegno in badanoo ka midi maalan markuu abu sufyaan oo gaal ahaa boqortooyadii romaniska ay kulmeen heraclis ninkii la odhan jiray marka uu shaam ku kulmeen ee uu nebigu calayhi salaatu wasalaam waraaqda u diray heraclis uu leeyahay islaam ayuu heraclis wuxuu weydiistay madaxdiisii meesha joogtay war ninkaa waraaqda ii soo diray wax tolkiiyo magaalada waddankeenna joogaa ma jiraan waa la raadiyey safar qurayshoo ka yimi maka oo meesha jooga abu sufyaan hoggaaminayo ayaa la helay abu sufyaanna markaa waa gaal waa dagaaladuu nebiga kula jiraa wuxuu yidhi igu yeedha meeshaa la fadhiisiyey qiso dheer abu sufyaan 14 su'aalood ama 13 su'aalood buu weydiiyey oo uu ku itixaamayo uu rabo ninkan iyo taariikhdiisa dhabtaa inuu helo waa markuu odhan doono hiraqal wallaahi baan ku dhaartee halkan fadhiyuu qabsan doona kaasi yacni inuu nebi xaqayay laakiin markii lagu kacay ayuu madaxnimadiisii iska xejisto gaalnimadiisii iska haystay hirakal waxyaabihii uu weydiiyey marka abu sufyaan waxaa ka mid ah muxuu idin faraa buu yidhi ninkani waxaa cusube uu la yimi waa maxay ya'murunaa biالsalaati waالsadaqati waalcifaafi waالsila buu yidhi wuxuuna farayaa salaad ilaahay loo tukado wax bixin wax la baxsado dhowrsanin la dhowrsanoodo iyo wasila xidhiidhin tolka iyo qaraabada la xidhiidhiyo in qaraabada la xidhiidhiyo ayuuna farayaa idan maka markii la joogay nebigu calayhi salaatu wasalaam caynkaasu ahaa maalintuu madiine galay ee dadku ka hor yimaadeen ee ansaartu ay soo dhowaynaysay niman yuhuudda ka mida ayana soo raacayay oo eegayey bal nebi maxamed sifooyinkii kitaabkoodu ku qorra inuu leeyahay oo rasuul yahay iyo in kale si ay u hubiyaan dadkaa soo raacay waxaa ka mid ahaa markaa cabdillaahi ibnu salaam saxaabigii la odhan jiray oo markaa nin yahuudi oo caalim ah waa culammadii ugu waaweynayd yahuudda xadiidkiisu ninkana wuu dheer yahay laakiin maxalu shaahidkun baan soo qaadanaya ninkani aakhirkii wuu islaamay laakiin wuxuu yidhi markii aan u imi aan eegay buu yidhi waxaan arkay buu yidhi wejigani weji beenaala inaanu ahayn qof kadaaba inaanu u weji eekayn nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam
wixii koowaad ee markuu afka kala qaaday aan ka maqlayna buu yidhi waa markuu nebigu madiina yimi wixii koowaad aan ka maqlay waxay ahayd buu yidhi isagoo leh ayaanu imi buu yidhi ayuha annaas afshu salaama wa atcimu aطacaama wa salluu wannaasu niyaamun tadkhulu ljanna riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayeen in xidhiidhintuna ay ku jirto calaa kulli xaal axaadiistaa markaynu eegno ama nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka uu tilmaamayo in allaha khalaqa alkhalq xataa idaa faraga minhum qaamat alraximu faqaalat hada maqaamu alcaa'idi min alqatiica nebigaa wuxuu leeyahy alayhi salaatu wasalaam markii ilaahay khalqiga abuuray ayaa qaraabadu ay ka cabatay in la goynayo dabeetana ilaahay baa wuxuu ku yidhi miyaad raalli ka ahayn inaan xidhiidhiyo wixii ku xidhiidhiya inaan gooyo wixii ku gooya dabeetana saasay raalli ku noqotay buu nebigu tilmaamaya iqra'uu in shi'tum buu nebigu yidhi aayaadkan qur-aan u akhriyay fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqaطicuu arxaamakum fahal casaytum ay hal tawaqactum ma filaysaan ma haddii aad jeesataan oo diinta qaadan weydaan inay dhulka fasahaadisaan oo riximka goysaan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala arxaamtiina aa goysaan nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka asaxday waxaa ka mid ah wuxuu nebigu leeyahay halaaثun uqsimu calayhin saddex waan ku dhaaranaya xadiidna waan idiin sheegaya ee xifdiya saddexdu ku dhaaranaya nebigu waa maxay xoolo sadaqa ma yaraysa buu nebigu leeyahy xoolo kuma yaraadaan ilaahay xaggiisoo la dhigto walaa dalama cabdun madlama walaa dulima cabdun madlamatan sabra calayha lama dulmiyo addoonna oo dulmigaa kuma sabro oo ma cafiyo iskama dulqaato ilaa zaadahu allahu ciza ilaa iyo cafigaa ilaahay wuxuu ugu kordhiyaa sharaf qofna albaabka mas'alada ma fura buu nebigu leeyahy ilaa iyo baab faqri baa loo furaa waxisiidu hadday kugu badato gaal iyo muslim ciddaa doontaba bariya baryadu ma fiicna saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy walaa fataxa cabdun baaba mas'ala qof ma furo albaabka baryada ilaa iyo ilaahayna albaabka faqrigu uu furaa hal shayna waan idiin sheegayaa qayba buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa maxay adduunku waa afar unbuu nebigu leeyahy afar qof unbaa adduunku u sugnaaday afarta qof laba waa ammaanantay labana waa ceebaysantay labada ammaanan waxaa ka mid ah addoon ilaahay maal iyo cilmi isugu daray buu nebigu yidhi addoon ilaahay uu siiyey xoolo iyo cilmi fa huwa yataqii rabbahu fiih xoolaha iyo cilmiga ilaahay siiyey rabbigiibuu kaga cabsanayaa wayasilu bihi raximah nebigu wuxuu leeyahay raximkiisana qaraabadiisana wuu ka xidhiidhinayaa ilaahay xaqa uu ku leeyahay ee zake iyo wixii la midana waa gudanaya kaasi aakhiro afdalu lmanaasil buu degayaa buu nebigu leeyahy meelaha ugu sarreeya idan jannada dhulka ugu sarreeya waxa lagu dego waxaa ka mid ah sida xadiidkani tilmaamaya rabbiga cabsidii iyo haddii ilaahay wax ku siiyo inaad xidhiidhiso dadka qaraabada ku ah xadiidka maxalu shaahidkun baynu ka soo qaadannay waxaynu u dhaafaynaa oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay acmaashii jaahiliyada la samaynayay wakhtigii islaamka ka horreeyey la samaynayey oo ay ka mid tahay qaraabo xidhiidhintaa qofku hadduu islaamo inuu camalkaana xataa ajarkiisii weli uu helayo walow markuu samaynaya uu gaal ahaa laakiin markuu islaamay in laga aqbalayo walidalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yimi xakiim ibnu xasaam saxaabi la odhan jiray oo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo bal ka warran arrimo aan samayn jiray berigii jaahiliyada waxba ma helaya waxyaabuhu sheeganaya markaa waxaa ka mid ah silatu raximkaas aslamta calaa maa aslafta min khayr baa la yidhi aslamta calaa maa aslafta min khayr wixii aad samaysay khayr aad horu marsatay waad la islaamtay buu nebigu u tilmaamay qaraabada xidhiidhinteedu waxaan leenahay markaa waa min addiin haddaba waa goorma dadka badh baa waxay u haystaan xidhiidhintu inay tahay markay ku xidhiidhiyaan inaadna xidhiidhiso nacam taasi waa sax waa abaalgud laakiin waxa weeyaan xataa hadday ku dhibaan oo ku gooyaan adiga way kugu leeyihiin xidhiidhintii isagaa dembaabay laakiin adiga way kugu leeyihiin maxay xidhiidhintii
ولذلك أي النبي عليه الصلاة والسلام حليه ليس الواصل بالمكافئ واصل كان نين صلة الرحم كصمينيا نين كان وحديدينيا نين كأبال قدي ما هبو النبي يقولي نين كأبال قدي ده تلك مركز كفي عنتينا ينا وحطران أدناد وحطرته الماديريا المبتية بروداق يدد قرابه يسكن واتينا وحسترتان ده هو أبال قدي مركز وحيل وطرون بدنا وحكي عليس كما هبو يقولي النبي وكينو كهضلينا كاسوا مكافئ باليدي وأنين أبال لغولها هاي أبال كي قدي لكن كان شيء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها بنبغول واصلكو وكمرك أي قويان قرابديسو يساقو حريرية بنبغول عليه الصلاة والسلام ده القرآن كان وحكو الله حادثة الإفك مركا دعضي بين أبور كي لغا فافيي عائشة رضوان الله عليها أبي بكر أيوه دارتي وحكا دارنا يعني من كان warka rumaystay munaafiqiin baa warta sameeyay laakiin dadka badhbaa jira warka aan hubin iska rumaystay niman muslimiin oo waaweyn oo muhaajiriin iyo ansaar bale ayaa run mooday warkiyo faafiyay iyana waxa kamid ah Hasan ibn Thabit shaacirkii nabiga kaleey salaatu wasalaam oo ansaariga aha waxa kale kamid ah muhaajiriinta Mistah ibn Athath waxa kamid ah Hamna waxa la yiraahdaa dadkii faafiyay ka qayb qaatay bay noqdeen دبت أبي بكر وحو كحناقي مصطح ابن أثاث إن كان لا يراهدو هو يدي أبي بكر بهبر وذاقه مركا أبي بكر قرابة نمية اللي مدراد دي سقيه هو يدي بيسقى بيلا أبي بكر باوحو بيلا مصطحا إيه هو يدي بأبي بكر بابيلا يسوق أبي بكر لبدا بوحسين أيها هدنا إنك يوحو وحكشا جاي محي عايشة قرابيين أبي بكر أرنتي بقادن كرواية مركا وعكر دارتين أنا واحدة مصينين وان كدليا يا وحمان صميني كلام بكر ماله بس وحسين تيدا كاهي سنة يا بولاي واحدة بكسين مايو إلهي بقرآن سودة شيله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى يي كدارن إلهي باله كو الديرات كالسيي ينلوش اللوب اللي يي كدارن دتك فقراء يا مهاجرين تا إلهي درتو سو هجرتين وحسيان يي كدارن بايلايد ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا إلهي وعدي حد عفان وهكتشستان ميدان شعلين دنبابا إلهي لي سبحانه وتعالى إن إلهي دنبقين دافو إذن أبي بكر وحل فريا يدو مصطحوا لبتا تنجيستي هدنا إنو ولي حريريو أو وحسيو